Iminkana waxaynu eegaynaa haddii la idhaahdo marka la isku dhufanayo labo qormo-saynis sida la isugu dhufanayo. Labo qormo-saynis haddaad doonayso inaad isku dhufato, labadaada qormo-saynis intaa iyo intaasaad gooni isugu dhufanaysaa, intaa iyo intaana gooni baad isugu dhufanaysaa. Waxaad odhanaysaa 3.72 oo lagu dhuftay 1.3 labadaa gooni baad isugu dhufanaysaa. Waxaad kaloo gooni isugu dhufanaysaa 10⁻5 oo lagu dhuftay 10⁻3 ka jar wadata. Labadan gooni baad isugu dhufanaysaa, labadan aan gooni la imaado 3.270 oo lagu dhuftay 1.3 dhibcaha iska ilow. Waxaad odhanaysaa markaa 13 isku dhufo iyo intaa isku dhufo. Labada haddaad isku dhufato waa 6, labada haddaad isku dhufato 21, halka dhigo labada qaado. Labada haddaad isku dhufato 9 iyo 2 11, 9 iyo 2 11, labada haddaad isku dhufato waa 2, labada haddaad isku dhufato 7, labada haddaad isku dhufatana waxa weeyaan 3. Tan iskala soo deg, tan iskala soo deg, labada isugu waa 3, labadan isugu waxay 8, labadan isugu waa 4. Halkan ku soo noqo haddaba dhibcihii aynu meesha ka saarnay si aan u raacino. Qaybta dhibicda 2 tiro ka dambeeyay, qaybtana 1 tiro ka dambeeyay. Labada tiro iyo halka tiro haddaad laba ahaan baad ka soo qaadaysaa. Halka 2 tiro, halkana 1 tiro waa 3 tiro marka la isugu geeyo. 3 tiro soo dhaafo halkan dhibicda dhig. Waxaad oranaysaa waa 4.836 oo lagu dhuftay labada tobnaad ka xeerarkii jibaarada. Labada sal hadday isku mid yihiin mid ka soo qaado, labada jibaarna way isku tagi jireen. Laakiin iminka mid baa ka jar wadato soo way kala go'ayaan. Dadna waxaad oranaysaa 4.836 oo lagu dhuftay 10 ku jibaaran. Labada haddaad kala jartana waa 2. Saas jawaabteenu inoogu sax tahay ku soo baxaysaa.